السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو xanaagsan daawadayaal meel kasta dunida nagala socotaan waranimo sabti ah bisha September 24 sanada 2022 qodobada aad barnaamijkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah dagaalkii u dhaxeeyay TPLF iyo ciidamada dawladda oo ku sii siqayay magaalada caasimadda oo ah deegaanka Tigreega ee Makale iyo meelaha tan la kala marayo iyo ciidamadaasi huwanta ah oo qarka u saaran inay la wareegaan magaalada weyn ee Makale iyo furimo kale oo dagaal xooggan oo ka socdo saacadaha haatan aan hadlayno iyo xogihii ugu dambeeyay ayaan soo qaadan doonaa waqooyiga waddankaasi Itoobiya. xeeldheerayaal dhanka amnigaana waxay xog cusub oo la yaab leh ka soo saareen dagaalka u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo kooxda argagixisada ee shabaabka iyo weliba halka ilaa iyo hadda ay wax marayaan iyo siday wax u socdaan. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan. saaxiibayaal soo dhawaada. aan ku bilownay waqooyiga waddanka Itoobiya waxaa ka socda dagaal aad u culus oo u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo weliba kooxda TPLF waxaana ay wararku sheegayaan in maanta uu dagaal aad culus ka socdo aagga magaalada Makale ee caasimadda deegaanka Tigreega waxaana ciidamada dawladda iyo kuwa Eritrea iyo weliba maleeshiyaadka canfarta oo is garabsanaya ay weerar maalintii labaad ku hayaan magaaladaasi Makale duleedkeeda halkaasi oo ay ku sugan yihiin kooxo fara badan oo ka tirsan kooxda TPLF oo doonaya inay difaacaan magaaladaasi weyn ee Makale balse xoguhu waxay tilmaamayaan in guud ahaanba ay ciidamada dawladda iyo weliba ciidamadaasi kale ee la socda ee huwanta ee waddanka Eritrea iyo maleeshiyaadka canfartu inay qarka u saaran yihiin inay la wareegaan magaaladaasi Makale. dawladda Itoobiya ayaa bartilmaameedka ugu weyn haatan ka dhigatay magaalada caasimadda u ah deegaanka Tigreega ee Makale waxaana ay dawladdu doonaysaa in ay aagagaasi ka samaysato saldhigyo iyo weliba in ay kooxdaasi TPLF meelaha kale ee deegaanka Tigreega ay kula dagaalanto marka ay la wareegto magaaladaasi caasimadda ee Makale. waxaana Makale ay guud ahaanba ku tahay magaalo muhiim ah waxay leedahay airportyo waaweyn ama gari ay diyaaradaha ka hadaan oo ay ka aadi karayaan guud ahaanba meelaha kala duwan ee deegaankaasi Tigreega waana fursadda ay dawladda Itoobiya doonayso inay uga faa'iideysato kooxdaasi TPLF inay ku soo afjarto. dawladda Itoobiya waxay doonaysaa in hogaamiyaasha ugu sarreeya kooxdaasi TPLF ama ay disho ama ay gacanta ku soo dhigto balse waxa ay wararka ama xogaha aan helayna ay tilmaamayaan in ay madaxdii ugu sarreysay kooxdaasi TPLF aanay haatan ku sugnayn gudaha waddankaasi Itoobiya ayna ku sugan yihiin meel ka baxsan waddankaasi Itoobiya iyadoo markii hore la filayay inay ku sugan yihiin gudaha deegaanka Tigreega balse waxaa la sheegay markii ay bilowdeen duqeymaha iyo weliba dagaaladan tooska ah ee dawladda iyo ciidamada kooxda TPLF u dhaxeeya inay isaga baxeen deegaankaasi Tigreega oo ay ka carareen diyaaradaha si aan duuliyaha lahayn ee dalka Itoobiya iyo weliba duqeymaha ba'an ee ka socda deegaankaasi Tigreega ee dawladda Itoobiya ay ku bartilmaameedsanaysay madaxda ugu sarreysa ee kooxdaasi TPLF. warar ayaa sheegaya in hogaamiyaasha TPLF ay ku sugan yihiin waddanka Suudaan balse lama xaqiijin karayo meesha ay ilaa hadda ku sugan yihiin balse waxay xoguhu tilmaamayaan in ay ka maqan yihiin gudaha deegaanka Tigreega waxaana markii hore ku sugnaa Getachew Reda afhayeenka kooxdaasi TPLF isaga ayaana ugu dambeeyay sida ay wararku sheegayaan lamana huba in ay ku sugan yihiin xitaa gudaha deegaanka Tigreega balse waa xogaha gudaha waddankaasi Itoobiya la isla dhex marayo. dagaalku waa sii xoogeysanaya marka dambeysa kooxda TPLF waxay doonaysaa in ay isdifaacdo walow la leeyahay kooxdaasi haatan iskama dhicin karaysa ciidamadaasi huwanta ah ee dawladda Itoobiya iyo weliba dawladda Eritrea iyo maleeshiyaadka canfarta iyo axmaarada oo doonaya inay deegaankaasi galaan waxaana dawladda Itoobiya la sheegay in qorshe ka duwan kii hore ee 2020 ay ku galeen deegaankaasi Tigreega ay haatan wataan oo ay guud ahaanba doonayaan in ay cagta mariyaan kooxdaasi TPLF waxbana aanay kaga tegin deegaankaasi isla markaana hubka laga dhigo ciidamada deegaankaasi Tigreega ee haatan la dagaalamaya ciidamada dawladda waa sida dawladda Itoobiya qorsheynaysay. xogo kale oo haatan soo gaadhaya ayaa sheegaya in waddanka Imaaraadka Carabtu markii labaad ka dejiyay saanado iyo weliba hub tiro badan gudaha waddankaasi Itoobiya iyadoo looga in maalmo ka hor ay diyaaradaha waddankaasi Imaaraadka Carabtu ay ka digeen mid ka mid ah garoomada ciidamada cirka ee waddankaasi Itoobiya waxaa markii labaad ay saanado iyo weliba hub kala duwan ka dejiyeen mid ka mid ah garoomada ciidamada waddankaasi Itoobiya taasi oo loo arkayo in Imaaraadka Carabtu uu si aan hagrasho lahayn xilligan u taageerayo duulaanka wajiga saddexaad ee dawladda Itoobiya ku qaaday kooxdaasi TPLF. haatan aan eegno Soomaaliya. dawladda Soomaaliya ayaa qaaday tallaabo lagu bogaadiyay oo dhanka dagaalka kooxda argagixisada ee shabaabka iyadoo kaashanaysa shacabka
uu ka dhamaaday dulqaadkii ee dhibaatada kooxdaasi argixisada ee shabaabka doonaya inay iska dulqaadaan. Ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka oo is abaabulay ayaa ka saaray kooxdaasi inta badan deegaanadii ay ka joogeen gobolada dhexe, gaar ahaana Hiiraan iyo Galgaduud, iyadoo howlgalka lagu dilay boqolaal dagaalyahan sida ay sheegtay wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya. Taliyaha ciidanka Jenaraal Oduwa ayaa shaaciyay in wejiga koowaad ee howlgalka uu soo idlaaday, isla markaana midka labaad ay ka bilaabi doonaan Bay iyo Bakool oo ka mid ah meelaha ay kooxdaasi argixisada godoominta aadka u baahan ay ku hayaan, oo dadka degmooyinka dowladda maamusho ay u diideen in uu gargaarka bini'aadanimo iyo weliba badeecooyinka ganacsiga uu ku gaaro dhanka dhulka. Waxa ay dowladda Soomaaliya haatan qorsheynaysaa in guud ahaanba ay bilaabaan wejigaasi labaad ee dagaalka, waxaana guul weyn loo arkay in ciidamo ka soo baxay magaalada Muqdisho ay markii ugu horeysay muddo ku dhow 20 sano ay gaadhaan gobolada dhexe ee Soomaaliya ama deegaanada Guriceel iyo Galgaduud iyo weliba gobolka Hiiraan oo haatan intiisa badan la xoreeyay ama guud ahaanba la dhihi karayo dhammaan gobolka Hiiraan haatan waa uu ka xoroobay kooxdaasi argixisada ah ee shabaabka. Qorshaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ah in uu muddo 1 sano ah kusoo afjaro kooxdaasi, taasoo haddii ay dhacdo geli doonta taariikh baaldahab ah, isagoo noqon doona madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya qabta ee kooxdaasi argixisada ah ka adkaada ama soo afjara. Ciidanka dowladda waxay hadda haystaan taageero badan oo uga imanaysa Mareykanka, dadka deegaanka iyo ATMIS, waxayna sameynayaan horumaro xawli ah oo deegaano ay kula wareegayaan, iyadoo xildhibaano ay safka hore ee dagaalka ku jiraan, isla markaana ay ka qayb qaadanayaan dagaaladaasi mas'uuliyiin aad u sarreeya oo dowladda Soomaaliya ka tirsan, taasi oo keentay in ay moraalka ama niyadda dadka deegaanka iyo weliba ciidamada militariga ee Soomaaliyaba ay sare u kacdo, haatanna ay horumaradaasi xawliga ah gaadhaan ciidamada dowladdu. Goobihii ugu dambeeyay ee kooxdaasi argixisada laga saaro waxaa ka mid ah ceel la helay, Nuur Fanax, Beerxano, Aboore iyo weliba Booco oo bariga magaalada Beledweyne ku yaala, iyadoo dhanka Galgaduudna ay ciidamada dowladdu kaabiga u saaran yihiin degmada Ceel Buur. Kooxda argixisada ee shabaabka ayaa muddo dheer dagaal kula jira dowladda Soomaaliya ee qaramada midoobay taageerto, iyadoo dadka shacabka ee Soomaaliyeedna dhibaato xoog badan u geysatay. Kooxdaasi kumanaan ayaa ku dhintay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya kadib qaraxyo iyo weliba weeraro toos ah oo ka dhacay magaalooyinkaasi oo ay ku bartilmaameedsadeen kooxahaasi argixisada oo dadka shacabka ee Soomaaliyeed. Taasi ayaa haatan dedejisay cimriga kooxdaasi oo ay dad fara badan ka hor yimaadeen kana soo horjeesteen, oo guud ahaanba ay xilligan isku diyaarinayaan in kooxdaasi ay ka xoreeyaan deegaanadooda iyo guud ahaanba wadanka Soomaaliya. Waxaana taasi ka faa'iideysanaya ciidamada dowladda oo garab siinaya dadka deegaanka, isla markaana ay ka wada qayb qaadanayaan howlgalladaasi lagu xoreynayo deegaanada ay gacanta ku hayaan kooxdaasi argixisada ah ee shabaabka. Waxaana dad fara badan oo arrimahaasi ku xeeldheer dhanka amniga ay sheegeen in kooxdaasi haatan ay u muuqato mid uu gobolkeedu sii dhacayo, dowladda Soomaaliyana loo baahan yahay in deegaanada ay ka xoreyso kooxdaasi loo sameeyo maamul iyo weliba ciidamo booliis ah oo xasilinta deegaanadaasi ka qayb qaata, maamulna si degdeg ah loogu dhiso oo kooxdaasi aanay dib ugu soo noqonin una soo haweysanin deegaanada laga xoreeyay. Akhyaarta ashrafta leh hawada nagala socoto, tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.